maxaa ka taqaanaa daawade sheekooyinka reer guuraaga ee libaaxa iyo waayihiisa ma gaar ahaan libaaxa waa halista ugu badan ee noolaha aadanaha iyo dunyada kala duwan ay dhaqdaan dadka Soomaaliyeed haddaba warbixin arintaasi ku saabsan waxa inoo diyaariyay Yuusuf Maxamed Maxamuud saana u fiirshay mise sidii tukuhiiba hawada iga soo socdaa afka u kala haya dhacaankiisii baa saa igu soo daatay afkiisa ka daayay waan ashahaatay meel aan cararan ma leh mana boodi karo jarjar baan geed ku soo fuulay waxaan isiri markii bahalkan adiga horda ku diliyay naftu waa balaaye goortu kugu soo dhacay xabada dhuunta u gali waa sanooyin ka hor dhulkuna waa hawdka gobolka Nugaaleed oo waqtigaasi barwaaqo ah baqdinta ugu badan ee reer guuraaga ee xilligaasina waxay ahayd duurjoogta ugu horeeya libaaxa oo ah boqorka habar dugaag sheekooyinka libaaxa iyo qisooyinka ka soo maray reer guuraaguna waa sheekooyinka ugu xiisaha badan marka aad joogto dhulka baadiyaha ah iyo tuulooyinka yaryar ee ku xeeran halka magaalooyinka waaweyn aad ugu imaanayso ka sheekaynta siyaasado kala duwan iyo fadhi ku dirriyo joogta ah Cabdullaahi Cali Warsame Biyood waa aasaasaha deegaanka Qalaanqal oo ka tirsan gobolka Nugaal waxaana ka sheekeynayaa mid ka mid ah waayihiisii nololeed iyo weerar harcad dhex maray isaga iyo libaax ugaarsi tag ahaa Cabdullaahina waqtigaasi waxa uu ahaa saantag iyo inuu soo indheeyo deegaan ku habboon miyi magaalo waan joogay casarkii markay ahayd oo qorraxda gaabatay oo aan ka gaari karin reerkii iyo masaafadii aan ka imi midna waxaan go'aansaday inaan xabad garanuuga ku qasho baliga dhexdiisa garanuugtii markii aan qashay qorraxda way dhacday dalaq bay tiri geed baan imi weyn ilaahay baa weyne korna dalad ka saa wada soo daladaysan hoosna ka dheer oo 3 mitir iyo bar ah dhexdiisana waxaa degi jiray dadka libaaxa ka cabsada oo ka gala libaaxa iyo kancada laga fuuli jiray socodka sahanka oo dheeraaday iyo deegaankiisii noqoshada oo fogaaday Cabdullaahi Cali Biyood waxa uu go'aansaday inuu ku haydo habeenkiisii koowaad baliga Qalaanqal leh dhanka kalena ma mooga cabsida iyo walwalka badbaadada naftiisa ee libaaxa oo uu durba dareemay cida iyo jabaqdiisa oo ah mid aan loo adkeysan karin sida awgeed markii ay dhacday garanuugtii markii aan qolay hilbaheedina soolay geedkeen aan fuulay waxaan maqlay libaaxeedii xooga iga jidha cabsi badan baa i gashay waxaan siri bahalkan aniguna markaas waxaan ahaa nin ka soo baxay magaalo oo aan miyiga aad ugu active ahayn war waxaan raadkiisa aad aragtisaan u ciidayaa xagad caaw naftaada ku badbaadin doonta xoogaa markaan joogay meel ugu dhow oo biyo qabsi oo baliga meel ka mid ah oo war jeexana xoogaa biyaha ku jiraan mid baa soo taagay libaaxa wuxuu dareemay sanuuntii garanuugtii aan qalay buu dareemay wuxuu damcay markaa waana baahaysay caraduna waa cilla toos buu ii soo abaaray waxaan maqlay cidiisii oo reen ah waan burji dhacay anigii waan geliriyooday anoo dhan timihna way iska taageen geed dhaladiisaan saaranahay oo macaal roobadeedii hilibkay geedka dhaladiisii saaran yihiin waxaan ku talagalay marka waani masjid warka ha ka haro mar haddaad balligan dacay inaad magaalaysid oo degtid oo deegaan ka dhigatid carar oo baqo wax ka xun ma jiraanin libaaxii baa cunay baa dhaama dareenkiisu waa uu isbedelay cabsi badan ayuu uu dareemay libaaxiina waa uu soo dhawaaday oo wuxuuba soo uriyay raqda ugaartii uu qashay maanta Cabdullaahi waxauna galay difaaciisii ugu dambeeyay iyo xeeladii uu libaaxaasi ku dili lahaa naftiisana ku badbaadin lahaa haddii uu soo weerar tago raqdii hoostiilay oo garanuugta lafaheedii iyo madaxeedii caloosheedii isdul saarnaa baan qoriga aan haysaa ugu shiishkaan saa uga bogtay in yar markaan joogay bahalkii waa soo baxay meel bannaan waa soo dhigay si aad argagax ii gashi afkalaqaad iyo reen iyo dhibaato iyo cagajuulin cagaha dhulka igu dhuftay intaas ku daray soo raadinaya aan aniga liif iyo arag laakiin raadinaya wax dhaqaaqliya raqda agteeda jooga waso haddii aan waxba dhaqaaq diiday waxaan uga waayay raqdii buu dul yimid markuu raqdi dul yimid afku gashaday afka markuu gashadana meeshaas jeeniga dibadiisa ayaan kaga dhuftay qorigii xabadii wadnahay dhinaca kale kaga soo gufaysay kor buu soo haaday wuxuu yimi aniga dhakadaydii geedka iga sareeyay wixii dhan 4 mitir ba kor buu iga soo maray saana u fiirshay mise sidii tukuhiiba hawada iga soo socdaa afka saa u kala haya
dhacaankiisii baa saa igu soo daatay afkiisa ka daayay waan ashahaatay meel aan cararan ma leh mana boodi karo jaranjar baan geed ku soo fuulay waxaan isiri marka bahalkan adiga horda ku diliyay naftu waa balaaye goortu kugu soo dhacay xabada dhuunta u gali bahalkii wariqsideedii meel iska bedelay maaqaan afarta aadin meeshii uu ka qaaday buu afarta aadin saa ugu dhuftay wuu finiinay haweeney naftana waa ka baxday kadib dilkii libaaxa iyo waagii oo bariyay waxa uu ka soo degay Cabdullaahi geedkii uu habeen ka hor fuulay waxaana uu guri noqday reerkii uu maalin ka hor ka soo saantagay waxaana ku soo furay reerkii isla balligii qalanqalle oo ay taalo raqdi libaaxu Cabdullaahi waxa uu walwal badan ka qabay in haddii ay xaaskiisu aragtay libaaxaasi bakhtiga ah ay ku noqonayso caqabad kale oo soo wajahday oo ay baqdin iyo fiig badan ka qaadi doonto balse maxaa dhacay markii aragtay xaaskiisa oo arigeedii la joogta libaaxii oo fuursan muuqaal ahaanna aan loo adkaysan karin aragtidiisa saantaan bardo way cararay haday bahalkan aragtay bahalka intii aan ku ogaa in labada leeg buu leegi waa karay afkii raas kala noqday wax laga sheekay kara xiliyo intaas la leeyihiin wax bil aadni u fiirsan kara marka ma leh intuu qarax leeyahay aragii iyo gabadhii wiilkeedii meesha intaan awrti furayay galay saantii bahalkay sidoo taagtay anoo u jeeda haraatay ku dhufatay aniga waa fajacayba qoftaan isla agax wax ka deeysa hilbiga fiirso waxay tiri hooyo inoo soo daji midaba bahal aabaha dilay wayti waxay tiri maxaad noogu qarisay libaax soo baqti ma habe bayt soo baqti ma ahanay waxay tiri nin libaax xabad ku dhuftay sagaara nin xabad ku dhuftay horta ma ka dawayeey aniga hooyadee baa soo sili ku jira dhagax ku diri jirnay adoo bela iska dhigaysa saan u dilayna ilkaha iyo afka furka baabeen jirnay soo sili ku jira ha halaabay oo adaaba iga daran makaan arkay waxa ku disheen bahalkii dhagax meeshaadii bal meel ka dheerba deegaanka meesha bilowgiisa soo ahaa qalanqal Yusuf Maxamed Maxamuud